نبي عليه الصلاة والسلام وحينو الشيء هيا إلهي إنه الله طلعي ابن آدم كا وحا إلهي إلهي هيا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك ابن آدم عبادة إذا التفرغ عابد دا عابد يسد إيا كشقين تطاعد إذا كشقين يسد التفرغ قلبي قاقا وحان كبو حين يا غني النمو فقري أنا إرديه سواء كأوديا بلن با إلهي كوقات هذا إلهي طاعدي سكون مشقوشد أو وحول بآخرات كهر مريسد إلهي وحو كوبلن قاضي قلبي قاقا إنه إلهي غني النمو نقهايو فقري أنا إلهي كأوديا وإلا تفعل أي إلهي سدا هذا صمين أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك قعناها مشغول بانقورت كوغلينيا فقري قاغنا مد بوليو باهدا دوي تاغنانيسا wax kasto oo aad haysi waa baahanta qalbigaaga ayaad ka baahanto ka gubanaysa waxaan ku hor yaala dareenka kugu jira waxa weeyaan xagee ka ziyaadisa hebel see uga daba tagtaa hada intaas ku dari lahayd hadii intaas ay ku dhamaystirmi lahayd mar hore iska cibaadeysan lahayd oo waa ka nasan lahayd waliga taas un baad ku jiraysaa ilaa geeridu ka timaado ballan ilaahay wuxuu ku ballan qaaday hadaada nin aakhira aadan noqonin ee nin adduunyo aad noqotid in qoorta lagu geliyo fakhri aad ka caranaysid oo habeen iyo maalin ay isleedahay halkan fakhri baa kaaga soo dhawaanaya mashquulna qoorta lagu geliyo aad ku mashquulaysid adduunyo raadinteed waxa kaaga imaanayaana ay tahay intii lagu diiwaan geliyay oo kali ah adduunyadu qofka raba iyo qofka aan rabin oo ka cararahaya ayadu ma dhihi karto qofkan waa ay rabaa anna waan rabaa waa aadaya qofkaani waa iga jeesto waan ka jeesanaya ma dhahayso qofkaani adduunyada hadduu ka cararo waxa ka daba imaanaya intii loogu tala galay midkaana hadduu adduunyada ku mamanaado oo raadiyo habeen iyo maalinba u labisto waxa uu ka helayaa intii loogu tala galay maamul ilaahi ah oo ilaahay oo maamulayo ayaynu hoos harsanaynaa maamulkeenu waxa ka hirgelaya waa inta ilaahay uu ka ogolaado ma sha Allah kana wama lam yasha lam yakun asbaabaha rizqiga lagu raadiyo dhibaatooyinkana looga hortago waxa kamid ah al-istiqama ala shar'i Allah ilaahay daacadiisa qofku inuu ku toosnaado oo sharciga ilaahay ku toosnaado haday kala noqoto sharciga ilaahay hadaad ku mashquulshido ku diinta iyo barashadeeda iyo khayrka ku mashquulshid furas badan baa ku dhaafaya haday kala tahay maya halka ma jirto waxay jirtaa ilaahay meesha uu dhigay oo ah daacada ilaahay lagu mashquulo وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هذا وضد في عنكو توصنان لهايين بيوان أكسن بان ورابين لهايين بركات السماوات كي أرلد الله فور الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا يددك مقالوين كتشوغا إلهي رميان وإلهي كبقان إلهي وحو أفرها يا وحويان وأفر لها سماوات كبركات كودا إيا أرلدا وحا بركيا الله با الله فر الله روب كي با الله سو دينيا دول كان خيراتي سي با الله سو ساريا مركاسا نين والبا خير يا برواقه او كدرغيا ضاعد إلهي بالمرادية وحا لغو راديا رزقيا او لغو دلبا صلة الأرحام رحمك او لحريريو أيا لغو راديا نبي وحي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه قفك دون هيا رزقك إن الله واسعيه وحويا عمرك سنة الله ديريو قفكاسي وحويا قرابتها حريري رحمك يا قرابتها حريري مساكين تهجرب استاغو ضدك النعف هؤلاء هذا وي قفكو هادو بلشد النعف أولي هي oo danta guud iyo khayrka kala qayb qaadanayo ilaahay wixii sana waa u barakaynaya
رزقي سنة إلهي وواسعين يا ونهل يا مل ونكمل سنة هي بوكهلايا ولذلك حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام وحول لي إن لله عبادا إلهي وحول لي أضامه اختصهم بالنعم نعموين بإلهي سيئي أو خاصية لي لنفع العباد سيئي أضامه أو أنفعان أي إلهي النعم يحوله يهانت إلهي أسي يقرهم فيها ما بذلوها إلهي النمعة أوسي وكل حسقيا وكو إلالينيا انت أي بحنا هيان فإذا منعوها نزعها منهم وتحولها إلى غيرهم هذا ديدان نمعة إلهي أوسي إلي بحيان إلهي واكسيبيا وحون أوريتشينيا كوكله أو ضدك كوافعة waxa adigu aad haysatido ilaahay uu ku siiyay waa wax ilaahay dad badan oo nan siinin ada ilaahay kugu khaasiyay dad kooban ba ilaahay siiyay waxa ilaahay u siiyo xikmadahay waxa weeyaan ba nabigu yiri linafci al-ibad adoomada ina ku anfacdi waxa khayrka ina kaga shaqaysid oo adoomada kale ku anfacdi ilaahay ba ku dhiibay dhiib baa lagu yiri markaas nabigu yiri alayhi salatu wasalaam انت اي نفعيغاسي بخينا هيان الهي واكوبه هيان وانا كسغا يقرهم فيها ما بذلوها انت اي بخينيان الهي سبحانه وتعالى وكدخسغا هيان فاذا منعوها مالك يديدان maxaa ku iimaanaya nazacaha minhum ilaahi wakasibay kuwa kale bixinaya ilaahi u dhiibaya qof wax bixiya oo wax bixin oo bixinaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheego bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixiisana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafciga uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh dadka agtoodana amaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa amaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay amaan iyo khayr baa u taala maalin boona u baxsanaya xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxayo marnaba ku qadimayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanaya imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay ولذلك الإمام الشوكاني بدر الطالع wuxuu ku soo guurinayaa qiso cajiib ah qisadaasi waxay ahayd nin baa wuxuu lahaa beer yar waxaana ku dhex yaal ceel ceelkaas beerta ku dhex yaala beertaas ku warwaraabiya masaajid buu meeshii ka dhisay masaajid ayuu dhisay dad badan oo sidaas ma leh masaajidku habeenkii wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa faynuusti oo masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa masaajidku soo dhexdhiga hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan cashadana waa siiya hadduu dad waayo cishihiisu iska tukadaayo salaadiisa cashadiina asaga cuna gurigu iskaga soo laabta dhaqankaas u lahaa faynuusti iyo cashadii buu isla soo qaadaa maalintii dambe ayuu wuxuu damcay ceelkii oo guray oo biyo yareeyay in la qodo asaga iyo wiilashiisi ceelkii bay qodid ku bilaabeen aabihii baa hoos jira ceelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gabigiisiiba ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aabba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin ceelkaas inuu dumay waxay uga tageen oo yiraahdeen qabrigiisii baa ilaahay ka dhigay naga wado sidii bay iskaga daayeen 6 sano ka bacdi ayay qabrigii qodeen ayagoo oranaya ceelkii aan bal fiirino
ayay meel kale geesa ka qodeen waxay ugu tageen aabe oo nool ayay meeshii ugu tageen way yaabeen soo bixiyeen bal waran bay yiraahdeen wuxuu yiri markii aan ceelku dumay meel yar oo god abaan galay soo dumay waxa isku kay gooyay dhagax weyn baa fuulay iridii meeshaas wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyay anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la mara ku sugan ayaa waxa ii soo galay faynuusti iyo cunadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuusti baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunadii aan qaadi jirayna meesha bay igu timaada cunadaydan iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsada intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jira qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxaya cajaa'ib bay leedahay aad iyo aad nuuciyaal oo u kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga tala galeen nin dhintay laakiin nuxurkii uu sameyn jiro khayrkii uu sameyn jiray intuu sadaqa qaada maalin walba masaajidka uu geynayo iyo faynuusti iftiinka uu ku nuurinayo beedka ilaahay ayaa loogu nuuriyay mugdiga inta leeg asagoo ku jira ilmihiisina ay ka qoosteen ayaa halka loogu iftiimiyay qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayi maayo waa helaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuu